heshiis is-afgarad oo wadajir iyo iskaashi ah oo ay wada saxiixdeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya iyo Somaliland iyadoo la daba raacayo qaybsashadii Afrika. Somaliland waxaa guumeystay Ingiriiska oo xukumayay waxaanay madax bannaanidoodii heleen 26 bishii Juun 1960. taasi waxa ay xasuusinaysaa in isla waqtigaasi wadamo badan la siiyay aqoonsi. hase yeeshee maalmo kadib isla sanadkaas Somaliland si mutadawacnimo ah ay hal mid ula noqotay Muqdisho oo markaa ka heshay madax bannaanideedii Talyaaniga. sanadkii 1991 Somaliland waxay ku dhawaaqday madax bannaanideedii mar kale iyo in xilligaa wixii ka dambeeyay Somaliland waxay ku dhaqmaysay hab dimuqraadi ah muddo ka badan 30 sano iyadoo ay ka dhaceen doorashooyin isxigxigay iyo waliba xil wareejin dawladeed oo nabada. wadamo qaar oo ay ku jirto Itoobiya waxay ka furteen xafiis qunsuliyadeed Hargeysa. heshiis is-afgarad oo la saxiixay wuxuu ogolaanayay in boqolkiiba 19 dekada Berbera Itoobiya iyo waliba iskaashatooyin kale lagu wareejiyo. taasi waa xaqiiq cad. sidoo kale waxaa la ogyahay in wadamo kale ay marayaan isla habkaas. wali ma jiraan wax gunuunuc iyo waliba cabasho ah marka heshiiskaas la dhaqan galiyay. heshiis qoraaleedka dhow ee is-afgaradka ah ee la saxiixay kaasi oo u ogolaanaya Itoobiya inay hesho saldhig military iyo ogolaansho adeegyo marin ganacsi badeed oo isdhaafsiya iyo kireyn ah sida caadiga ah waa isku mid. waxaa jira heshiis iskaashi ah oo u dhaxeeya wadankeena iyo waliba Somaliland. heshiiskan is-afgaradka ah ee la saxiixay ee isfahanka wadajirka iyo iskaashiga ah wuxuu muujinayaa dadaalka ay sameynayaan labada dhinac si ay u sii xoojiyaan saaxiibtinimada iyo inay ka jawaab celiyaan su'aalaha taariikhiga ah ee labada dhinac iyo inay fududeeyaan saaxiibtinimada muhiimka ah hab la heli karo oo ku saleysan macluumaad hufan. Somaliland heshiiskan is-afgaradka ah wuxuu u ogolaanayaa iyaga nooc caawin iyo bahwadaag aanay ka helaynin wadamada kale. sidoo kale waxa uu ka jawaabayaa baahiyahooda fog iyadoo khusaysa danaha dalkeena. waxaa si cad loogu sheegay siyaasadeena dibadda inaan muhiimada siino darsiyadeena. habkani waxaynu baadi goobnay si aan xal ugu helno dhibaatooyinka darsiyadeena inagoo la shaqeynayna. waxaynu go'aansanay inaynu la wadaagno kuna biirno horumarinta awoodsiinta kheyraadka dabiiciga ah iyadoo la fulinayo qorshaha fog iyo hamiga aynu sida wadajirka ah u horumarinayno. sidoo kale waxaynu abuuraynaa fursad si nabad ah loogu difaaco loona horumariyo jiritaankeena iyo waliba danayowgeena siyaasadeed. xilliyadii fogaa dhexe iyo waliba sidoo kale taariikhda fogba dalkeenu waxa uu lahaa ogolaansho badeed oo toos ah. xilliyadii adkaa ee fogaa amaba dhawaa waxaynu luminay helitaankii laakiin mar dambe ayaynu helnay ogolaansho. ugu dambeyn dagaalkii shisheeye ee socday 30 sano ee ay kiciyeen dhibaatooyinka gudaha ah iyo waliba shirqoole dibadda ah oo dhacay dhamaadkii dagaalkii sokeeye iyo khalad dhinaca siyaasadda iyo taariikhda ah. dalku waxa uu noqday mid dhul ku wareegsan yahay amaba bilaabada 5 sano ee u dambeysay si aynu u saxno jabjabka taariikheed iyo niyad jabka dadkeena. dawladda cusub waxa ay ceersanaysay dib u habayno ula kaca oo loo dhexmarayo hab isballaarin ah oo waara. dooqyo helitaan badeed oo ku habboon xaaladda iyo horumarka dalkeena. nuqulkan waxaa ku dhawaaqaya dadka reer Itoobiya oo la hadlaya bulshaweynta iyo waliba beesha caalamka. heerka ku dhawaaqid ee dawladeed waxaa dabada ka riixaya rabitaan ee ma aha in cidna aynu dagaal ku qaadno. si loo hubiyo in dooqyadani socdeen waxaa si wadajir ah faa'iido ugu yahay dhammaan badaneeyayaasha. sidoo kale waxa uu muujinayaa in Itoobiya diyaar u tahay inay la wadaagto deeqaheeda. waxaynu sameynay dadaal ballaadhan si aynu ugu sharaxno dhammaanba cidda awoodda amaba rajaynaysa inay dhegaysato. wadatashi iyo waliba dhexdhexaadino labada dhinac faa'iido u ah ayaa ka socday Somaliland muddo bilooyin laga joogo. sidaa daraadeed heshiiskan is-afgaradka ahi ee isfahanka ah waxaa loo saxiixay faa'iidada labada dhinac. waraaqdan daabacani waxay Itoobiya fursad u siinaysaa inay hesho saldhig ciidan badeed oo joogto ah iyo adeeg marin ganacsi badeed oo gacanka cadmeeda iyadoo la qabanqaabiyay kireenta iyo in dib loo eego meesha ay dawladdu ku dhawaaqdo. waxay u ogolaanaysaa in Somaliland garwadeen ka ahaato saami ku filanna ay ka hesho diyaaradda Ethiopian Airlines
taasi waxaa ka baxsan qodobo ay dowladda Itoobiya u sameynayso oo ah qiimeyn gundheer oo ku aadan dadaalada ay Somaliland sameynayso si ay u hesho madax banaani deeqaheena dabiiciga ah ee uu gobolkeena inagu deeqo kuwaasi oo inaga badan dhammaanteen macquul ma aha inaynu ku abuurno mustaqbal fiican inagoo diidayna iskaashi daahana ku rogayna xasilooni darrada amaba xumaanta heshiiska aynu la galnay Somaliland wuxuu muujinayaa aaminsanaanta dowladda in lagu guuleysto hamiga Itoobiya iyadoo loo dhexmarayo iskaashi kala dhaxeeya dalalka deriska ah amaba mabda isdhaafsi iyo waliba hab ay nabadi ku dheehan tahay fursadani waa ay furan tahay dhammaan waxayna ahaan doontaa mid furan heshiiskan is-afgarad waxa uu abuuray fursad si loo daweeyo 30 sano oo isku buuq iyo waliba walwal ah oo dadka reer Itoobiya haystay sida aawadeed waa dhacdo muhiim ah oo dadka reer Itoobiya ka dhigtay kuwa faraxsan sidoo kale dhacdadani waxay raali gelinaysaa dadka reer Itoobiya iyo dhammaanba saaxiibada Itoobiya iyo dhammaan xubnaha beesha caalamka kuwaasi oo ay ka go'an tahay in nabad lagu xukumo geeska ma jirto wadan amaba dhinac saameyn ku yeelan kara heshiiskan is-afgarad ma jiro wax aaminaad ah oo la jabiyay amaba wax xeer ah oo lagu xadgudbay halka ay tani tahay xaqiiq marnaba lama dhihin qaar ayaa dhibsan doona ka nixi doona amaba diidi doona isku dayada horumarka togan amaba wanaagsan